shalay waxaynu ka soo hadalnay qaabkii aad Odoo set up garan lahayd, database u samaysan lahayd, una verify garan lahayd. Maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay qaabkii company yani aad u dooran lahayd oo charts of accounting-kiisa ama company xisaabaadkiisa aad u set up garan lahayd. So koorsaan waxaan ku qaadan doonaa 3 company. Company koowaad wuxuu noqon doonaa merchandise company. Company oo alaab soo iibiyo siina iibiyo sida kambaniyada Soomaalida ay wada badan yihiin. Manufacturing company waa company labaad oo ah company badeeca sameeyo iibiyana. Company saddexaad oo set up garan doona waxa waaye service company. Company service baxsho oo waxyaabo aan la taaban karin baxsho. So company koowaad wuxuu noqon doonaa merchandise company. Company alaab soo iibsado siina iibiyo. Marka wuxuu company-ga si loo set up gareeyo wuxuu qaadan doontaa 3 step ayaa la mari doonaa. Step koowaad waxaa loo yaqaanaa setting up the company account. Akoonada company in la set up gareeyo oo ah from manual laga soo qaado to computerized laga dhigo. Midda labaad oo waxa waaye recording transactions. Transactions-ka company-ga uu sameeyo oo dhan in la diiwaan geliyo oo ah wixii uu soo iibsaday, wixii uu sii iibiyay intii la joogay manualka si computerized looga dhigo. Iyo midda saddexaad waa entry in la sameeyo, closing entry in la sameeyo, xisaab xir in la sameeyo, data company laga hortago. So step koowaad oo ah loo yaqaano charts of accounting ama company-ga akoonadiisa in computerized laga dhigo waxa waaye charts of accounting oo ah xisaab fadhiisinta company-ga la sameeyo. Marka basically Odoo wuxuu leeyahay akoomo oo built-in ah kuwaasoo template ah oo asaga ku diyaarsan markasta oo database cusub samaysid akoomadaas uu wataa templateska. Marka kuwaas ayaa modify gareyn doontaa adiga waxa u baahan tahay ka dhigan doontaa company-gaada akoomada uu isticmaalaa ku bedelan doontaa. Badanana Odoo wuxuu yani ku base garaysan yahay dhankaas iyo Mareykanka. So template-yadaas ku badan marka adiga noocaada ka dhigan doontaa, template-kaada ka dhigan doontaa. So si aad u booqato charts of accounting waxaad tagi doontaa accounting app, then configuration, then charts of accounting. So akoomada aad kusoo dari doonto way badan yihiin ayagoo PDF ah kusoo dhigi doona set up gareyn doonta. Marka waxayna ku xiran tahay company-ga set up gareynayso akoomada uu isticmaalo. Hadda ka soo qaad akoonka waxaa loo baahan doonaa akoon loo yaqaan cash on hand. Marka la set up gareynayo waxaa loo baahanaa akoonka numberkiisa in la sheego oo hadda ka soo qaad tusaale waa 1000 magaca akoonka, then bank and cash meesha uu ka tirsan yahay inuu asset ya groupkiisa waa la sii sheegaa. Akoonka labaad akoomada way badan doonaan set up gareynayso Salaam Bank. So aan sila set up gareyno soo bax. So marka waxaa imaataa browserkaada imo akoonkaada Odoo soo gal. Akoonka set up gareynay shalay waa kana waxaa imaataa qaybta accounting app application-ka ay ku qoran tahay accounting app imo then waxaa ka tagtaa configuration, then waxaa ka tagtaa charts of accounting. So halkan wuxuu noogu tusi doonaa dhammaan akooniska oo built-in-ka uu leeyahay Odoo oo ku imaado database cusub markaa set up gareysid. So mid ka rabtid ayaa dul tagi kartaa, magaca ku qornaa ka bedeli kartaa, waxaa rabtid ku samayn kartaa. Mid cusubna waa abuuran kartaa. Marka akoomadii aan kusoo sheegayay oo PDF-kooda ayaa hal xab set up gareynayna. Akoonka koowaad wuxuu ahaa cash on hand. Akoonka haddii xasuustid wuxuu ahaa cash on hand ama lacagta gacanta hadda lagu hayo. So marka magaca akoonka waxaa ku qori doontaa meeshaas kore account name-ka waxaa loo yaqaanaa cash on hand. Then meeshaan waxaa gelin doontaa akoonka numberkiisa. Hadda wuxuu ahaa 1000. Meeshaan waxaa gelin doontaa type-ka akoonka bank and cash. Currently uu naga noqday bank and cash ku celi. Meeshaas oo waxaa ka save gareyn doontaa meeshaas ugu haddii aad meeshaas ku dhufanin akoonkaas waxay ka dhigan tahay inaad sameyn meeshaas ay loobin inaad ku dhufatid. Ku dhufo uu ku save gareynaa. Akoonkaas waa lagu sameeyay. Hadda soo fiirino charts of accounting inada ku dhufano ka fiirino listiga cash on hand waana loo sameeyay oo bank and cash ah. Mid ka rabtidna waxaa ka bedeli kartaa. Hadda ka soo qaad kan waxaa u baxsanaynaa akoonkeeni labaad oo loo yaqaan Salaam Bank. Salaam Bank. meeshaan waxaan ku qoraynaa numberka akoonka oo wuxuu ahaay 11 00.
so Salaam Bank wuxuu ahay bank and cash save garay saas ku save garay so hadda soo fiirno Salaam Bank waana loogu soo daray qaybta accounts-keena Salaam Bank I think est inuu raacay Salaam Bank waa kana waana loo sameeyey Salaam Bank so akoomada PDF kooda kusoo diraya hal xalab soo geeli mid kasta sameey haddii aad videoga hadaan duubeyna dhan waqti u qaadanaa marka taas assignment ahaan u qaado wixii problem ka qabsadana waxaa noola soo wadaagtaa qaybta commentiga oo ku maasantaa taawashada